dadka deegaanka Timirshe iyo Dooxa Gaban oo hoos tagta degmada isku shuban oo ka tirsan gobolka Bari ayaa ciidamada xoogga Puntland ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan BSF ay gaarsiiyeen biyo iyo deeq lacageed. dadka deegaanka ayaa biyahan si weyn ugu baahnaa waxaana u mahadceliyeen madaxda iyo ciidamada xoogga Puntland ee BSF ee deegaankaasi biyaha soo gaarsiiyay. nabadoon Cabdicasiis Baydhabood oo madaxda ciidamada BSF ay u soo wakiisheen in uu deeqdan lacagta iyo biyaha uu gaarsiiyo dadka deegaanka ayaa waxa uu ka hadlay in madaxda iyo ciidamada BSF ay ka go'an tahay in ay caawiyaan walaalahooda reer guraaga ah ee abaartu ay saamaysay. anigu waa nabadoon Cabdicasiis Baydhabood wakiilna u ah ciidanka amniga Puntland BSF iyo mas'uuliyiintooda u soo wakiisheen dadka halka jooga oo abaartu saamaysay oo u baahan wax allaale iyo wixii la tari karo oo maalinta la yiri weeye isunaxa adin naxariiste qof kasta oo ummadda Soomaaliyada oo ka damqanaya dadka abaaraha iyo biyo la'aanta hayso deegaan kasta ku nool yihiin qofkii damiir leh wuxuu garanayaa inuu wuxuu gaarsiiyo manka ciidanka BSF iyo madaxdoodu oo boqolkiiba boqol isu taagay in dadka shacabkooda Puntland ay garab istaagaan annana aanu uga wakiilnahay inaanu gaarsiino dadka wixii ummadda ay ugu deeqayaan odayaasha iyo gudoomiyaha degmada Timirshe iyo nabadoonnada inaan ku wareejiyo 20 booyadood oo biyo ah oo la gaarsiinayo dadka deegaankaas odayaashu ay garanayaan iyo si loo kala liito ay u gaarsiinayaan. nabadoonnada deegaanka ayaa madaxda iyo ciidamada xoogga Puntland uga mahadceliyay lacagtan iyo biyaha ay soo gaarsiiyeen waxaana ay codsadeen in loo dayactiro ceelal deegaanku uu leeyahay si looga baxo biyo la'aanta deegaanadaasi ka taagan. lacagti waa taa waa 2400 waa 20 booyadood booyadii waa $120 waxa noogu gurmaday oo nooga timi waa Cabdi Baydhabood nabadoonku wakiil u yahay hay'adda BS la yiraahdo BSF ayaa noo gurmatay oo lacagta noo soo nagu caawintay oo waa biyadaan waa 20 booyadood waa idin mahad celinayna mar hore mar dambe mar dhexe mahad balaaran baan idin celinayna. waxaan leenahay wixii kale oo ama noo ballan qaadeen ama idinku aadannimadiina iyo tolnimo iyo islaamnimada aad hore ugu daqnateen iyo bini'aadanimadaba waan sugeynaa. waxaan ugu baaqayaa dawladda federaalka ah iyo tan Puntland kulliba meesha tan waxay leedahay ceelal bay u dhow ceelal waxa way ceelash way naga xumaadeen waa ceelal riigag ah mid 14 mitir buu qodan yahay oo wax noo sii qodan male mid waxba ku go'an oo ilaahay beerka beenay waxa way dhagaxba ku jiro oo wax nooga saar male. waxaan doonaynaa tan Puntland iyo tan federaalka kulliba inay ceelasha nooga saaraan dhagaxyada ku jira riig noo keenaanin haddaan riigaga helo oo waxa weeye biyahan helo uma baahneenba nin biyo haystay de waxa weeye nolol buu haystaa. tan iyo markii ay soo baxeen qayladhaanta xoogan ee abaarta ka jirta gobolada Puntland madaxda iyo ciidamada xoogga Puntland ee BSF waxa ay wadeen dadaallo isugu jira biyo dhaamis iyo raashin qaybin waxaana ay ka sameeyeen deegaanada Puntland ee ka jirto abaarta xoogan. Axmed Muuse Cali Axmed Joker Jubaland TV Boosaaso.